أقبلت يا رمضان يا شهر الهدى. أقبلت يا رمضان يا شهر الهدى. يا سعدنا لما هلالك قد بدا. وحللت يا شهر الصيام مباركا ومؤانسا والقلب فارقه الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال وحين سوقا إن حلقة إني أفراد حلقات كي عشرة إنه قلت لقى لنا بشهر رمضان، وحين نفل إنه مرة إنما لنتي أفراد بشهر رمضان. معلمك هو بنبانا إنه هذا إلهي تبارك وتعالى وحمد سنة معلمها دنبنا إنه نجارسيو. وحين هراء سوق هذا إن حلقته إني هراء أو متكمل هيدا waxyaabaha qofka soomka ka jabinaya. waxaynu xalqadan ku qaadan doonaa waxyaabaha qofka cudurdaar u noqonaya hadii uu lagu helo oo soomkii aanu waajib ku noqonaynin. ilaahay subhanahu wa ta'ala nafta bini aadamka waxaanay awoodaynin masaaro, laa yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. soomku waxa uu waajib ku noqonayaa qofka muslimka ah ee aqliga leh, ee qaan gaaray, ee awoodaya inuu soomo, nagi ee aan safarka ahayn, ee ka nabad gashan dhiiga xaydka iyo dhiiga nifaaska waa dumarkii. haddaba waxa qofka muslimka loo baneeyay inuu iska afuro xaaladahan soo socda markay yimaadaan iyo cudurdaaradan marka la helo. cudurdaarka koobaad waxa weeyi waa qofka hadii uu haysto xanuun sida ilaahay tabaaraka wa ta'ala quraanka uu ku tilmaamay, faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra. xanuunka halkan lagaga warramayana waxa weeyi waa xanuunka qofka ku dhaca ee dhibaato gaarsiinaya, ama xanuunka qofka haya ee hadii uu soomo ku ziyaadaya, ama xanuunka qofka haya ee haduu soomo naftiisiba uu u waayiyo. hadii uu naftiisi waayo xaaladaas oo kale waxa waajib noqonaysa qofkaasi inuu afuro, maadaama ilaahay tabaaraka wa ta'ala tilmaamay wala tulqu bi aydikum ila tahluka. waxaa haddaba soomka isaguna cudurdaarada afuriyo ka mid ah السفر المشروع أو المباح. سفر كبنان هدي وقفك سفره مسافة جاريسة علماء المسلمين توي كوكلا أركتي دوي هنا قياسي 6 كيلومتر. هدي وقفك سفر قالوا سفر كاسينه ويهي سفر بنان أو عن معصية أهين. حالة دا سو كلنا قفك وحا أو بنان أو جائز أو إنه صوم كي إسكده أو أفرو. ويا النبي عليه الصلاة والسلام وحا وقفكاسي وبنيي inuu soomkii iska afuro oo wax iska cuno. xaaladda soomku qofka uu sooman yahay ee uu safarna gelayo ee safarkiina aanu dhibaato iyo culays iyo rafaad kala kulmaynin, waxa qofka la kala dooran gelinayaa inuu soomanaado oo soomkiisii xijisto iyo inuu iska afuro, sida nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xusay in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir. haddaad doontana iska afur, haddaad doontana soom. waxyaabaha mubayhaadka ah ee baneeyo qofka bini aadamku inuu afuro soomka iska daayo gabadhii hadday xaamilo tahay iyo hadday ilmo naas nuujinayso oo ay awlaada ay dhaleen ama awlaada ay caloosha ku sidaan ay u baqaan, xaaladaas oo kalena waxa u banaanaanaysa inay iska afuraan. hadday nafahooga u baqaan waxay la mid noqonayaan sidii qofka xanuunsanayay oo kale oo aynu hore uga soo warranay. haddii ay naftooda iyo awlaadooda u baqaan labadaba iyadana way iska afurayaanoo waxa ka laazimaya inay qalleeyaan, inay kafaara gud la yimaadaan, inay qalle iyo kafaara gud labadaba la yimaadaan. saddexdaa qowlba culimada muslimiintu way ku leeyihiin. qodobka afraad waxyaabaha icdaarta ah ee baneeya qofka bini aadamku inuu afuro oo uu soomka iska daayo waxa kamid ah alkabiiru fi sin. qofkii hadii uu da gaaro oo uu awoodi kari waayo soomkii, welibana da'daasi ay u raacdo inuu aqligiisa xataa seego oo uu asaasa ku dhawaado oo uu soomkii awoodi waayo, qofkaas oo kale waajib xataa kuma noqonayo soomkii. inuu iska daayo iska dhaafi waajib kuma noqonayo, waayo waa غير mukallaf, da'na wuu gaaray, aqligiisina wuu tagay. hadii laakiin uu yahay qofku qof weyn oo aqligiisii aanu waayin laakiin soomkuun uu kari waayay, qofkaasi soomkii waa laga dhaafayaa oo uu iska afuraya. maalin kastana waxa laga bixinayaa
qof miskiina ayaa laga quudinayaa maadaama qofku aanu dib u soo dhalinyaroobeynin qodobka shanaad waxyaabaha soomka cudurdaarka u ah ee qofku aanu soomaynin waxa kamid ah gabadha haddii dhiiggii caadada ah leedahay ama dhiiggii dhalmada kadib haddii ay leedahay markaasoo kale soomna ka ansixi maayo labadaa marka la helaba soomkii waajibna kuma noqonayo salaadiina waajib kuma noqonayso sida nebigu calayhi salaatu wasalaam xusay haddii gabadhii dhiigga caadadu ka timaado soomna la iman mayso salaadna la iman mayso walaalayaal waxaa kamid ah waxyaabaha ilaahay tabaaraka wa tacaala macduuraadka iyo waxyaabaha uu inoo baneeyey cudurdaarada ah waxyaabaha aynu ilxaaqinayna waxaa kamid ah oo ah xaaraanta ah qofka haddii uu safar macsiyo ah galo si uu cid u soo dilo ama uu cid u soo dhaco ama uu cid u soo dhiigooda daadiyo ama cirdigooda iyo sharaftooda u soo hoos mariyo xaaladda noocaas oo kale ah safarkiisaasi waa safar macsiyo ah qofkaana uma banaanaanayso inuu soomkiisii afuro waayo culimada muslimiintu qaacide waxay leeyihiin arrukhasu laa tustabaaxu bilmacaasi waxyaabaha ilaahay cudurdaar inooga dhigay rukhso ihi laguma banaysan karo waxyaaba macaasiya ilaahayna tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku xusayaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ha isku kaashanina ithmiga iyo dembiga iyo xadgudubka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu ka baryaynaa waxyaabaha uu ilaahay inoo baneeyey haddii ay yimaadaan inaynu dadka muslimiinta ay qaataan cudurdaarka iyo rukhsadda maadaama ilaahay tabaaraka wa tacaala oo abuuray oo yaqaano duruuftooda iyo noloshooda iyo siday yihiin uu ugu talagalay inay qaadan karaan oo uu baneeyey inay iyaguna qaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu soomkeenna aqbalo maalmaha hadhayna ilaahay tabaaraka wa tacaala nabad iyo caafimaad inagu gaadhsiiyo wixii dembiya iyo wixii zallee carabkayga ka dhacay fa minii wa min ashaytaan wamaa asabtu bihi fa min allah wa asalu allaha tabaaraka wa tacaala